hawada naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha sportiska oo alaba aad nooga barateen inaanu halkan idinkaga soo gudbino. sidoo kale waxaanu idiin soo gudbinaynaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo arrintii Jordan Klopp oo mucjiso ku noqotay Liverpool aan la filaynin iyo isagii hadlay, iyo sidoo kale Xavi Alonso oo la saadaalinayay inuu mataqaanay imaanayo Anfield oo lagu rajo weynaa oo isaguna hadal diidma qayaxan ka soo saaray. sidoo kale ciyaartii Aston Villa iyo Chelsea waxay ku dhamaatay eber 90 iyo kistarhii waa la isla mari waayay. sidoo kale caaw waxaa wada dhelay laba kooxood oo daabiya isla FA Cup-ka, kooxda Man City iyo Tottenham. Man City iyo Tottenham ayaa wada ciyaaray. Man City ayaa waxay ka dhalisay gool daqiiqadii 88 Ake ayaa ka dhaliyay, halkaasna guush waxay ku raacday kooxda Man City. Jordan Klopp ayaa ku dhawaaqay maanta inuu ka tagayo kooxda Liverpool seasonka markuu dhamaado, xil ciyaareedkan hadduu dhamaado. hadal wuxuu noqday hadalkaasi hadal isku soo boodaa oo aan la filaynin. markii dambe oo la falanqeeyayna Jordan Klopp ayaa sharaxaad ka bixiyay inay ka dhamaatay tamartii uu kusii wadi lahaa kooxda Liverpool, xiriirinayay inuu koox kale aadayo ama tuhun laga qabay ama mataqaanay uu la yiri maaragtay qaranku u socda Jarmalka. wuxuu yiri markaan kooxdan ka fariisto sanadka cusub sanadkan ku xiga waan nasanayaa oo waa daalay buu yiri, macnaha nasiinaan galaya. marka Jordan Klopp arrintiisa arrin aad iyo aad u qabsatay caalamka, ciyaaraha caalamka oo dhan, adduunka oo dhan bay la qabsatay oo gilgishay. hortiisna waxaan ognahay isaga hortiis inay ka tageen raggii isaga la shaqeynaya staafkiisii. marka Liverpool maxay ka tiri? marka Liverpool arrintaas cajiib bay ku noqotay, arrin ay la yaabaan bay ku noqotay. kadib waxay go'aansadeen maadaama odaygu uu ku indha adeegay inuu tagayo, inay macnaha ay u dhigaan testimonial xaflad taalana ay u dhisaan, inay taalana u dhisaan, odayga ay sagootiyaan bay go'aan ku gaareen. Xavi Alonso marka shir jaraa'id uu qabtay ayaa la weydiiyey kooxda Liverpool, kooxdaadii hore inaad qabatid macquul ma tahay? wuxuu yiri waqtigan hadda la joogo meeshaydan baaqi kusii ahaanaya, meeshaydan ku haystaa. Bayer Leverkusen ayaa saldhig ii ah, oran joogi doonaa buu yiri. Anfield uma socda hadda waqti xaadirkan, meeshaydan ku qanacsanahay, meeshayda ayaanan joogaya. marka wallahi aad iyo aad arrintii waa la isla dhexkacay, shir jaraa'id uu qabtay. wuxuu yiri bataatan ba anigu uma socdo halkaas. Liverpool, Anfield iyo taageerayaashii iyo kooxdii iyo wixii oo dhan niyad jab qac madaxii baa wareeray. waxay yiraahdeen Xavi Alonso maxaad ka wadaa, waa sida xal? wuxuu yiri halkaas ii jooga, aniga kooxdan Bayer Leverkusen ba hadda wadaa, meelna uguma socdo, waa kusii nagaanayaa buu yiri, halkaan aan kusii nagaanayaa. waxaan ka fakarayaa, kama fakarayo yiri hadda inaan aado Anfield, inaan aado ama koox kale ta aado, kama fakaraya. waxaan ka fakarayaa buu yiri, isagoo hadal aan la filaynin yiri, waxaan ka fakarayaa buu yiri ciyaarta sabtida igu soo aadan iyo ciyaarta maaragtay aan dheeli doono next game aan dheelayo baan ka fakarayaa buu yiri, kama fakarayo dhankan iyo mataqaanaa koox aad iyo waxaas iyo anigu waxaas kama fakarayo yiri, adinka idin taala midaas. sidoo kale suuqa kala iibsiga haddaanu fiirino, kooxda Manchester United ayaa waxaa la soo warinayaa inay diri doonto ciyaartooy badan sida Casemiro, sida McTominay, sidoo kale Wan-Bissaka, ciyaartooy badan, Anthony, ciyaartooy badan inay diri doonto. hadday saan ay kusii socoto ciyaartooy badan bay diri doontaa. ay tahay sababtu ganaaxyo ayaa qabanaya haddii aysan ciyaartooydan dirin, ciyaartooy kalena ma soo gadan karto. saas awgeed inay ciyaartooy badan albaabada u furto ayay diyaar u tahay. Real Madrid iyo ciyaaryahan Mbappe inay ka wada hadleen mataqaanaa wada hadal u socdo inuu Real Madrid kusoo biiro. haddii uu kusoo biiro Real Madrid, ninka hadda afbuur ah oo Junior ayaa laga yaabaa haddii waxaan ku irahdaa haddii uu Real kusoo biiro Mbappe inuu ninkaasi ka tagi doono. waxaana loo badinayaa haddii uu Real ninkaas kusoo biiro inuu ninkaani Ingiriiska soo caga dhigan doono. sidoo kale Karim Benzema ayaa xoogaa galab ku jirtaayoo halkaan uu aadaya ilaa haddaan la xaqiijinin. Karim Benzema isagana weli xaaladiisu ma bisla.